war waxaan xilli xun ayuu gambarka dhinaca kale noola tuuray. Real Madrid ayaa si xamaasad leh labiyaha looga badisay kooxda Rayo Vallecano garoonkeeda Santiago Bernabeu iyadoo hal dhibic oo kaliya u jirsatay kooxda hogaaminaysa horyaalka ee Barcelona. Marka hore saaxiib waxa macquul ah muuqaalka inuu soo gaarin haddii uu soo gaaro shamar Koblink u taabo like saar falowna soo dheh. Markii ciyaartu bilaabatay Bellingham waa uu dhaawacmay isagoo aan cidna taaban. Dhaawaciisuna waxa uu ahaa mid aad u culus. Waxaana isla markiiba laga saaray garoonka. Bellinghamna waxa uu garoonka ka baxay isagoo ilmeynaya balse waxa lagu soo bedelay Ibrahim Diaz. 5 daqiiqo oo kaliya kadib Ibrahim Diaz ayaa caawin u sameeyay Vinicius Junior. Vinicius Juniorna waxa uu ka gudbay difaaciyada isagoo iskaga ciyaaraya. Waxa ka dhiliyay artuu qurux badan oo waali ah taasoo u muuqatay bilow sahlan oo galab degan ah. Si kastaba ha ahaatee faa'iidadaas ma sii waarin maadaama kooxda Rayo Vallecano ay keentay goolka barbaraha bilowga qaybtii labaad taasoo ciyaarta u weecisay dhanka kooxda awayga ahayd. Ciyaarta ayaa isbedeshay daqiiqadii 80aadka markii ciyaaryahan ka tirsan kooxda Rayo Vallecano la siiyay kaarka casaanka ah. Bal ka waran Mbappe oo leeyahay xil ciyaareedka waxa uu ku jira Brahim Ronaldo ayaa daqiiqad gudaheed isku bedelay Brahim Fernando Torres. Waxa uu helay fursadan shabaquna aad buu u furnaa qof walbana waa uu dhalin karay. Bal ka waran haddii aan ku dhaw gooshaasi waa uu khasaariyay. Inkastoo Real Madrid ay haysteen inta badan kubadda haddana way ku adkaatay inay jibiyaan difaaca Rayo Vallecano ilaa biraqsiyadii ugu dambeeyay. Laakiin daqiiqadii boqolaad Kylian Mbappe ayaa rigooro loo dhigay kooxdiisa u bedelay gool isagoo u hibeeyay gool muhiim ah iyo 3 dhibcood oo aad u qaali ah Los Blancos.